بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamahayaa dhammaan shacab weynaha xukuumadda iyo dadweynaha reer Puntland oo maanta igu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe anigoo ah sida aad ogtihiin wasiir cusub oo ku soo biiray golaha xukuumadda Puntland aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweyntii diiranayd oo aad sameyseen runtii wadnahayga taabateen inaad shacab walaalahaya oo magaranaysaa aniga iyo wasaaraddeydaba aad maxaan ku yiraahdaa ay muhiim ugu tahay ay tihiin ba ay tusteen midda labaad waxaan rabaa halkaan inooga mahad celiyo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ii magacaabay xilkan cusub xilkaas oo ah wasaarad cusub oo maxaan ku yiraahdaa ku soo biirtay wasaaradda Puntland aad buu madaxweynuhu u mahadsan yahay aniguna waxaan rajaynayaa inaan lahay magaranaysaa hawshaas garab galo oo aan ku guuleysto oo aan u shaqeeyo shacabkayga reer Puntland midda saddexaad oo aan rabo halkaan inaan ka sheego waxaan rabaa inaan uga taxsiideeyo dhammaan eheladii iyo shacabka reer Puntland dhibaatadii ay isku dayeen nabadiidka inay ku naafeeyaan ciidamada iyo shacabka reer Puntland oo aysan ku guuleysan haddii ilaahay idmana aan qayb ka noqonahayo dadka iyo waxa la mid ah sidii wadanka looga saari lahaa thank you very much